الحمد لله وثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، وسورة البقرة آيات كنتن يصدح. قال الله تعالى: إلهي باوحي تلك الرسل رسول الله صلى الله عليه فضلنا وانو كلا سريسيني بعضهم بركود على بعض برك كلام كسر ريسيني وكلا ديرات بيلي منهم من كلم الله قال إلهي الله كم إذا رسوش ورفع بعضهم قال كودنا وحو أسي ديرات سي درجات درجوين بوكرو قاضي وآتينا عيسى نبي عيسى وحانو سيني عيسى ابن مريم البينات معجسوين على عد وأيدناه وحانو كحوشن بروح القدس ملك الجبريل ولو شاء الله ربي هدو دون يوم ما اقتتل ما يدقالمين الذين من بعدهم رسول الله كوي كدن بي ما يدقالمين من بعد ما جاءتهم البينات انتي آياتها عدوي مادين كدب ولكن اختلفوا ويسخلافين تاسا كنتين يدقالمان فمنهم أمضها وحكم إذا من آمنا قال إلهي ربيي ومنهم من كفر قال إلهي كقالوا بين واكمي ولو شاء الله هدو إلهي دون يمقتتلوا ما يدقالمين ألا قدري ولكن الله إلهي ما يفعل وحفلنا يا ما يريد وحو دوني. يا أيها الذين آمنوا دتك إلهي رميو أنفقوا وحكب حسان مما رزقناكم حولها نؤذن سيني وحكب حيا من قبل أن يأتي إنتانوا إيمانين كهر يوم مال إنتانوا إيمانين وقيامه لا بيع فيه وحلك ليبسنا يا مجره ولا خلة صاحبة النمنا مجرت ولا شفاعة إرقنا مجرت والكافرون كوا إلهي كقالوا بي هم الظالمون كل قد بعض المفريالة. تلك إشارة سمت البانتاس وحيوسعتا وإنك لمن المرسلين رسول الله هلك هرو إلهي كسو شيء marka hadii aad soo aragteen ninkii Daaluud la oran jiray ee colka reer banu Israa'iil hogaaminayay inuu Ilaahay fadilo dheeraad siiyay taasi kaligii kuma gaar ahay Ilaahay isaga ayaa adoomaha kala dheeraad siiya dadka la kala dheeraad siiyayna waxa kamid ah rasuuladii dheeraadka lahaaba si kala sareeyayba marka arintan doorashadu Ilaahay bay u taalaa dadka cid uu doono dooranaya dalkana cid uu doono waqtigana cid uu doono makhluuqaadkiisa oo abuuray sidoo doono u kala sareysiin karaa rasuulada Ilaahay uu fadilay qaar kamida buu sheegayo waxyaabuhu ku dheeraad siiyay waxa kamida inuu la hadlay minhum man kallama Allah waxa kamida kaliimullah kii Ilaahay uu la hadlay nabi Muuse nabiyullaahi Muhammad sallallahu alayhi wasallam Ilaahay waa la hadlay marka halka waxaad ka aragtay inuu Ilaahay kula hadlaa wax weyn inaga laftigeena salaada dhexdeedu Ilaahay nagu hadlaya rasuulku sallallahu alayhi wasallam sidoo inoogu cadeeyay xadiidkii saxiixa ahaa markuu adoonku faatixada akhriyayo Ilaahayna wuu jawaabaya marka taa waa inaad ku xisaabtantaa daraja laga helaya halka qoliyaha Ilaahay dheeraadka siiyay waxa kamida Ciise ibn Maryam waxyaabo Ilaahay ku dheeraadka siiyay shanta nabi ugu fadli badan buu isbaahaye waxa lagu dheeraad siiyay bayinaad baa la siiyay waa mucjisooyin cadaad yubri'ul akmaha wal abras wa yuhyi al mawta bi idhnillah cudurada la maareyn waayo khubarada caafimaadkuna ka quustaan ayaa Ilaahay gacantiisa caafimaad uu ku siin jiray dadka qaar dhintayna waa buu baaqi jiro soo baxa buu oranayo Ilaahay baa taana awood u siiyo nooleynta Allah lahaa waxyaabaha Ilaahay uu ku dheeraad siiyay waxa kamida malakul jibriil baa barbar taagnaa oo xoojinayay sidoo rasuulkeenaba uu xoojinayay sallallahu alayhi wasallam Allah wuxuu tilmaamay halkan wax kasto dhacaa inaanay ka baxaynin Ilaahay doonidiisa iyo qadarkiisa
markaasaa rabbi waxau ihi allaa qadaree haddii aanu qadarin may dagaalameen laakiin iyaga waxaa ceeb ku ahaa min bacdi maa jaaءathum اlbayinaat iyagoo cilmi lahaa oo xumaanta iyo samaanta kala garanayay ayay haddana cilmigoodii ku camal fali waayeenoo markaasay dadkii culimada ahaa la dagaalameen kuwii gaalada ahaabaa markaa ku ceebaysa ilaa cilmigu wuxuu sheegaya inaan la isda khilaafin lana dagaalamin diintana lagu midoobo markaa dadkii muuminiinta ah reer banu israa'iil la dagaalameenoo taa way ku ceebowsan yihin waxaa kaloo aayadda ilaahay uu noogu caddaynayaa waxa la yidhaahdo dagaalka waxa ka horeeya af walaakin ikhtalafuu dagaalka waxaa ka horreeya inay iskhilaafeen diintii bay isku khilaafeenoo dad baa gaalooboo diiday dagaal baa ku xigay markii hore dacwad bay ahayd haddana dood bay noqotay oo khilaaf baa yimoo dad baa diintii khilaafay dagaal bay tagtay markaa dagaalka labada qoloba kuma khaldanayne waxase ku khaldanaa kuwii diiday diinta ilaahay walow shaaa allaahu ma qtataluu walaakina allaha yafcalu maa yuriid laba jeer buu ilaahay ku soo celiyey hadduu ilaahay doonayo may dagaalameen ninka halkaa waxaad ka aragtay dagaalku wax sii qadaran buu ahaa oo aan qadarka ilaahay ka baxayn marka laba eray baa inagu soo noqdo shaaa allaahu walaakina allaha yafcalu maa yuriid yuriidu iyo shaaa oo labadiiba uu doonaya ayaa inagu soo noqday marka haddii aynu halkaa hore ku aragnay base aayaadkani waxay ka hadlayaan caqiidada inta darsigan oo dhamma casharkani caqiidaday ka warramaya waayo halkaa hore waxaynu soo aragnay guusha ay gaadheen daaluud iyo muuminiintii la socday guul waxay ahayd iimaan iyo caqiido lagu helay ee guul awood lagu helay ma ahayn caqiidada maxaa toosiya maxaa kobciya sidee loogu kor qaada caqiidada arrimaha markaa ay ka hadlayaan casharadan isdaba yaalla waa kuwa caqiidada waxaa jira arrintan iraadada yafcalu maa yuriid iyo shaaa oo soo noqnoqotay haddaynu siira dul taagno qur-aankana meelo badan kusoo noqnoqota ma alfarqu bayna aliraadati waalmashii'a maxaa u dhexeeya iraadada ilaahay iyo mashii'adiisa xagga af carabiga marka la eego labaduba waa doonid wax la doono laakiin luqa alfuruuq fi luqa marka la eego waxyaabaha ay luqadu ku yar kala duwan tahay iraadada iyo mashii'adu in yar bay ku kala duwan marka la yidhaahdo shaaa wuu doonay dhaqsuu waxaa u doonaa ama u dhaqaajiyaa wey araadana wuu yaro raagaa oo ta'khiir iyo dibdhac bay leedahay xagga shareecada marka la eego iraadadu waa laba qaybood iraada kowniya waa iraada sharciya iraado doonitaan xagga qadarka ilaahayah oo ay isku mid yihiin mashii'ada ama mashii'ada ay isku mid yihiin marka taasi waa dhinaca qadarka oo iraadada ilaahay uu doonayo la yidhaahdo kowniyada waa wax ilaahay uu hore usii qadaray iraadada labaadna waxa weeye mid la yidhaha aliraadatu sharciya turaadifu lmaxaba iyaduna waxay la mid tahay maxabada iyo jacaylka oo waa wax ilaahay uu doonayoo uu jecel yahay oo addoommaha yidhi sameeya waa labadaa midna waa xagga sharciga midna oo wuxuu ilaahay doonayuu jecel yahay midna waa wuxuu qadaray marka farqi bay kala leeyihiinoo iraadada kowniga ahi waa caam ee mashii'ada la midka ah waana kan labadaba ilaahay israaciye walow shaaa allahu ma qtataluu walaakina allaha yafcalu maa yuriid yuriid iyo shaaa baa isku mida labadaba xagga qadarka iyadu waa caam wixii sharana way ku xidhiidhaa oo way ku xidhan tahay wixii khayrana way ku xidhmi kartaa wax ilaahay uu doonayo waxaanu doonayn labadaba iraadadaas iyo mashii'adaas maadaama xagga qadarka in way ku tacalluqi karayaan sida gaalka gaalnimadiisa iyo qofka muuminka iimaankiisa labadaba ilaahay baa sii qadaray oo waa waxuu doonay dee qofka gaalkaa gaalnimadiisana ma doonin
ومعناه ما جعل إلهي سبحانه وتعالى ودونه وقرأه وقدره وسيوغا ما سجعل هو كان ده يستكد بله لكن إرادة حق الشرع أهي iyadu waxay ku xidhiidhaan wixii Ilaahay uu jecel yahay marka taa hore waxay kaga duwan tahay inay dhacdo iyo inaanay dhicin labadaba waa suuragal oo Ilaahay iimaan buu jeclaaday ummadana uu faray dagaalkii uu iska dayn karaaba iyadoo Ilaahay uu doonay inuu dadku wada islaamaan oo iraadadiisa sharciga ah ee sharcinimo loogu waajibiyay ay taa tahay inay dhacdo waan laga yaabin oo in badan baan dadka de Ilaahay rumayninba subhanahu wa ta'ala marka midina inay dhacdo waa laga maarmaan midina inaanay dhicin baaba laga yaabaa tiila waxna waa wax Ilaahay u qadaray waxna waa wax Ilaahay u jecel yahay midna waa laazimatul wuquu' midna rubama la taqa inta saaw dhaxaysa marka midna maxabada isku mid yihiin midna mashiyada isku mid yihiin iraadada sharciga iyo takawniga marba laga yaabaa labada iraadaba in la wada helo tii sharciga iyo tii kawniga wixii Ilaahay uu qadaray iyo wuxuu jeclaa de waa iimaanul mu'min oo kale qofka mu'minkii markuu Ilaahay rumeeyo tii waa wax loo qadaray tii kawniga ahayd way jirtaa wixii Ilaahay uu jeclaana de wuu yimid oo waa iimaanka marna waxa laga yaabaa inay labaduba meesha ka wada baxaan waxa weeyaan وقفك مؤمن كأه قفك إلهي رميه سبحانه وتعالى قال لماذا يسوي وقفك مؤمن كأه دي إلهي ورميه سبحانه وتعالى مركتي قدرك هاي ويشرتايا وإيمانك لبدي ولا وذهلية إيمانك وقدري maxaan ku raahdaa aduu toora cagsigeed way toora marka qofka Ilaahay rumeeyay labadiiba la wada helaya qofka gaalka ah markuu Ilaahay ka gaaloobana waxa meeshii soo baxaysa tii qadariga ahayd way jirtaa waa gaalnimadii laakiin tii Ilaahay uu jeclaaba meesha ka baxda oo tii sharciga ahayd aduu afarta xaalo waa gaalnimo iyo islaamnimo iyo wuxuu jecel yahay wuxuu neceb yahay labadaas baad isweydaarinaysa afarta xaalo mar labadii waa la wada helaya marna labadii waa la wada waaya marna mid baa la helaya markay labadu meesha ka wada baxayaan waa kufrul mu'min qofka mu'minka gaalnimadiis deema jirto meesha way ka baxday oo taa macnaheedu marka waxa weeye intii kawniyada ahayd aanay jirin waayaynu intaasaynu markaa ku dhaafi lahayn qadiyadaas inaynu yara baraarujino aayadan kale waxay ku soo xiriirsantahay aayaadkii jihaadka Ilaahay uu faray dadku inay naf iyo maalba bixiyaan inta kale arrimo soo dhax galay baa oo Ilaahay uu dadka tusaalayaal ku siinayay dadkii ashhaadana Ilaahay uu baaqo wuxuu yaa ayuhal ladina aamanu anfiqu mimma razaqnaakum dadkii Ilaahay rumeeyo waxa wax ka bixisaan wixii aanu idin siinay wax loo hakradaaba ma jiraba Ilaahay dadka isaga abuuray waxaan u leeyahay xoolahana ana idin siiyay maxaa kugu dhajiyayba adna waa lagu leeyahay xoolahana Ilaahay baa leh mimma razaqnaak wa hadhihi kalima ama xarafka min wuxuu faa'iideynayaa tabciid wax yar weey boqolkiiba wax yar baa la ka bix waxaan malihid Ilaahay kulahaaba ku yiri labadiinaba ana idin la adiga iyo maalkaaga wax ka bix waxaad ugu adeegtaa ma jiro waxa labaad oo ku sahlaya de jaaniski ama fursad iyo waqtiga inaad ka faa'iideysato waqti waxa jiri doona ay ku soo mari doonto waxaan iba inuu ku dhaafay gaarina kareynin wa qiyaabaha wa maalin intaanu imanin ka hor iib ma jiro saaxiibtinimo ma jirto erga ma jirto adduunka saddexdaas la isku anfacaa wixii aad doonayso ama iibaad ku soo heshaa ama saaxiibtinimo lagu siiyaa ama ergo cidda wax ku sheeganaysa wax ka doonaysa waa lagaaga ergeeyaa waa laga muslaxa saddexdii midna ma jiro la haystaha Ilaahay uu qabsado cid maarayn mayso wal kaafiruuna hum adh-dhalimun marka taasina waxay nagu baraarusay adduunyadu waa ayaamaha ka faa'iideysta gabagabaduna waxa weeye gaal ayuu dulmi ku ururay
dadkii saalixiinta nin kamid oo culimadii baa wuxuu lahaa ilaahay baa mahadle sidaa uu dhigay yidhi walkaafiruuna hum adhaalimuun ee aan odhanin wadhaalimuuna hum alkaafiruun ilaa xasrigu imika dulmi oo dhan wuxuu ku ururay gaal laakiin haddii la odhan lahaa daalin kastaa waa gaal lama soo kala hadheen marka midka waajibka waxa weeye dadku intay ilaahay subxaanahu wa tacaala tilmaamihiisa qaadanayaan horumar bay leeyihiin halaagana way ka badbaadayaan arrimaha caqiidada ayaa ilaahay inoo saxay inaynu saa u qaadanana danteennaa ku jirtaa waanu ka digay dariiqooda in la maro dadka ilaahay ka gaalooba uu ku sifeeyey rabbi dulmi falayaasha wallahu subxaanahu wa tacaala